waa kuma ninka uu Bill Gates ku tilmaamay inuu isaga ka taajirsan yahay. Haddaba qisadan ayaad ku ogaan doontaa ninka uu Bill Gates tilmaamay. Bill Gates ayaa muddo laga joogo 19 sano ka hor intii uusan noqon taajirka adduunka ayaa waxa uu magaalada New York kula kulmay nin gadaya ama iibinaya jaraa'idkii ayaa u baarbaaray Bill Gates kadib waa uu qanciyay, balse Bill Gates waqtigaas ma haysan wax lacag ah oo ku gato jaraa'idka. ninkii ayaa dareemay madooba, ninkaas ayaana ugu deeqay hal jaraa'id una yidhi aniga ayaa si firiya kugu siiyey. muddo kadib ayaa haddana si la mid ah ay ninkii kulmeen. ninkii ayaa u yeedhay waxaana u siiyey hal jaraa'id oo kale. markan Bill Gates waxa uu ku yidhi ma hayso lacag aan kaga iibsado, sidaa daraaddeed haysiinin, balse ninku waxa uu sheegay Bill Gates inuu isagu ugu deeqay shaqadiisana uu ka siiyey. Bill Gates ayaa muddo kadib waxa uu noqday taajirka adduunka. kadib Bill Gates xasuus dheer kadib ayaa waxa uu ninkii la damcay inuu abaalgudo, waxaanu uga abaalguday inuu raadiyo muddo. Bill Gates waxa uu sheegay inay ku qaadatay muddo 15 cisho helitaanka ninkii marka uu helay ayaa waxa uu ku yidhi maanta waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo, balse ninkii ayaa ku yidhi aniga haatan iima abaalgudi kartid, waayo waxaa hadda tahay nin taajir ah, balse markii aan anigu wax ku taray waxaad ahayd faqiir, mana noqon kartid faqiir hadda. sidaa daraaddeed qofka abaal ku tara ama se wax ugu tara waxaa muhiim ah in loo abaalgudo waqtiga baahida ee faqiirka leeyahay.